Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kusoo dhawaada Ilays channel. Waxaan ka hadlaynaa cawada ama casharka aan ka hadlaynaa waa cache-ka waa halka computerka uu ku kaydsado macluumaadyada kala gedisan computerka uu ku urursado macluumadyadaas kala gedisan iyo si marka aad wax raadinayso ay fududaato marka loo baahdo. Marka waxaa jira faylal ku meel gaar ah oo temporary files la yiraahdo, kuwaasna waxay sameeyaan in computerka ay buuxiyaan oo ay booskii aad u baahneed ama qaradii ay ka buuxshaan. waxaa kaloo iyadana jirto oo iyadana laga saari karo faa'iidana leh. waxaa kaloo kale jirto Microsoft Store ayaa jiro. shirkadda Microsoft waxay ku dhex samaysatay dukaan Windows-ka oo la yiraahdo Microsoft Store oo aad ka gadan karto waxyaabaha adeegyada iyo badeecooyinka ayada halkaas ay ku gadanayso. waxaa kaloo jiro oo kaleeto iyadana aan soo qaadanayna DNS-kana maaragtay waa domain name system oo iyadana mar walba computerka uu mataqaanaa faylal halkaas macluumaadya uu ku kaydiyo ayna awoodi karto computerka inuu awoodiisa iyo xawaarihiisa liito ama uu faylal temporary geliyo. waxaa kaloo iyadana aan qaadan doonaa location-ka ama halka computerkaaga oo adduunka ka joogo ayaa waxaa jirto in Microsoft Windows-ka uu mataqaanaa ku jiro oo u baahan in iyadana mataqaanaa computerka laga masaxo ama laga tirtiro si position-kaas ama inaad iska xanibto si aanan loo ogaanin, si aanan targeted advertisement and marketing aan lagugu sameynin. waa iska xiri kartaa haddii aad doontaan ikhtiyaarkaada iskale waa iska dhaafi kartaa. waxaa kaloo jira halkaas wuxuu ku aruuriyaa macluumaad dheeraad ah, macluumaadkaas ayaa iska masaxay ama iska tirtiraysa. marka hadda waxaan bilaabaynaa marka ugu horeyso inaan temporary fileska aan tirtirno. si aan u tirtirnana casharkeena waxaan la tegaynaa startan tegaynaa ama waxaan ku qoraynaa disk clean up ayaan ku qoraynaa. disk clean up uu noo soo baxay ka sidana badana waa hard disk ama qarada halka computerka wax loogu kaydiyo. okay baan dhahaynaa. marka temporary fileska ama faylalka saa ujeedaan temporary-ga ah aan ka tirtiraynaa. temporary fileska hadda kuma jiraan oo casharka hore ayaan ku qaadanay. marka waxaa leedahay clean up. xageen ka tirtiraynaa? marka hard diskaha ayaad ka tirtiraysaa. kana waa u wadaa inta uu wado maaragtay waa kana diska clean up-ka ayuu sameynaya, calculation uu sameynaya. marka waa arrin loo baahan yahay. marka waa uu socdaa. marka waxaan sameynaynaa in aan maaragtay sugno oo si macluumaadkan computerka ama hard diskaha ka buuxin lahaa haddii muddo uu joogo abuurin lahaa inuu computerka uu awoodiisa yaraato ama performance-giisa. waa ujeedaa temporary internet files wax yaraa ku jiro, wax badan kuma jiraan. halkaana waxaa ku jira temporary fileska waa ujeeda waa iska zero horaan u tirtiray. inta ayaa thumbnailska ayaa 8 MB ay ku jirtaa. okay wuxuu ku weydiinayaa oo ka xaqiijisanaya ma tirtirayaa? yes aad leedahay waa tirtiraysaa. waa kana waa u tirtirayaa. marka wuxuu masaxayaa ama tirtirayaa faylasha ku jiray, faylashii iska halkaas isaga jiray oo aadan u baahnayn ee ku meel gaarka ahaa ayuu halkaas ku tirtirayaa. wayna socotaa saa ujeedaan. marka ilaa uu ka dhammeeyo marka waan sugaynaa. dib baan ugu soo noqon doonaa haddii Ilaahay yiraahdo.